Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii cilmiga ugaadha ee aynu ku baranaynay duurjoogta noocyadeeda kala duwan aynu ku soo qaadan jirnay ama aynu ku falanqayn jirnay, kaasoo aynu qeybtii koowaad kaga soo hadalnay nooca loo yaqaano dabataagta. maantana aynu soo qaadan doonno qeybtii labaad uguna dambeysay nooca dabataagta loo yaqaano ugaadha ka midka ah. dabataagtu waxay cuntaayo ay door bidaa dhirta loo yaqaano geed guwaaxa, inta badan ay jeceshahay. dabataagtu waa cusubsato oo nooca loo yaqaano browser herbivoriska. xilliga dooga ama roobka waxay cuntaa cawska ama dooga ama cusubka dhulka hoose kasoo baxa, laakiin inta kale waa geeda laac. dabataagta lama arag iyadoo biyo cabaysa weligeed, sida ugaadha oo kale, sida sakaarada oo kale nooca loo yaqaano. soomaalidu waxay ku maahmaahdaa sakaaro biyo way cabtaa iyo biyo ma cabto, iskumaanu qabsan. markaa sidaasoo kale ayay la mid tahay iyaduna nooca ugaadha aan la arag iyadoo biyo cabaysa. cilmi baadhis daraasadeed oo la sameeyey 1972 lana daabacay xilliga ayaa lagu diiwaangeliyey tiro aada u badan oo dabataag ah. dabataagta meelaha ugu hodansan ee xilligaa laga diiwaangeliyey waxay ahayd dhulka hawdka ah, gaar ahaan gar ciideed ama gar loo gubay ama ciid cas dhulka loo yaqaano, dhulka carada caslig ee carada guduudan, hadba sidaad u taqaano dadka sidiisa magacyada kala duwan u kala yaqaanaan. haddaba dabataagta ugu badan ee xilligaa la diiwaangeliyey waxaa laga diiwaangeliyey dhulka reserve area la yidhaahdo, dhulka soomaaliyeed ah ee etoobiya ay naga haysato, hawdkana la yidhaahdo, gaar ahaan kilalkan shanaad ama gobolka ogaadeniya, sida aad hadba u garanayso. inta u dhaxaysa badweynta hindiya iyo webiga faafan, toga faafan baan ujeedaa, intaa u dhaxaysa ayaa laga sameeyey diiwaangelintaas oo ugaadha ugu badan ee dabataagta ah laga diiwaangeliyey tirakoobkii xilligaa la sameeyey 1972. sidoo kale iyadana waxaa xilligaa laga helay oo laga diiwaangeliyey webiga shabeelle ee koonfur galbeed. sidoo kale waxaa la sheegay webiga niilka in beri dhoweyd laga helay 2 foosil oo dhagax oo ah dabataag, taas oo farshaxanadii hore xilligii faraaciyiinta dhagaxanta lagu farshaxanayn jiray sawirkeedii, taasoo markaa lagu xaqiijiyey ama loo malaynayo inay maaragtay xilligaa faraaciyiintii dhulkaa lagu noolaa masar ee xadaaraduhu ka jireen koonfurta uu xidhiidh kala dhexeeyey uu loo soo safri jiray, ama dadka deegaanka ha ahaadaan ama dadkan magaalada ha ahaadaan, in maaragtay xidhiidh ka dhexeeyey deegaankan ay ku nooshahay ku noolayd ay joogtay ugaadhan dabataagta loo yaqaano, maadaama oo aanay africa oo dhan dee ku wada noolayn, oo halkan intan east africa weliba gaar ahaan intan maaragtay hawdka la yidhaahdo, kilalkan ama intan etoobiya imika haysato ilaa adigu gobolada hoose ee koonfurta soomaaliya webiyada marka hoosta lagu sii raaco ilaa inahaas ayay bahashani ku noolaan jirtay, oo inta ugu badan maaragtay la og yahay ama dhaqan ahaan ama deegaan ahaanba lagu yaqaano aaggaas weeye. dabataagta waxaa loo aqoonsaday ugaadha ama xawayaanka noocyada dabargo-aya sida uu sheegay ururka caalamiga ah haddaba iyo khayraadka ee loo soo gaabiyo magaciisa IUCN lagumana qorin heshiiskii Washington ee CITES. ma jiro meelo lagu ilaaliyo oo si heer caalami ah qiyaas ama tirakoob laguma samayn tirada dabataagta 30kii sano ee ilaa 1960 ilaa 1990. sababahan awgood, qalalaase siyaasadeed, colaado xidhiidh ahaa ilaa xilligii daraawiishta iyo iska hor imaadyada hubaysan ee ay ka dhacayeen dhulka soomaaliyeed oo dhan, iyo hubkan baaruudda leh ee reer miyiga u gacan galay, maadaama oo aan adduunka kale aanay ku nooleyn ugaadhan dabataagta loo yaqaano oo ay ku nooshahay un keliya deegaanka soomaalida ama dhulka soomaaliyeed. haddaba maanta dabataagta tirada guud ee maanta nool ama joogtaa ee badbaaday, weli maanta tiro rasmiya ama xog lagama hayo dhammaystiran oo saxa.
sanadkii 1998kii aqoon-yahanka cilmiga xawayaanka ku takhasusay ee magaciisa la yiraahdo Fred East wuxuu ku qiyaasay deegaanka ay ku nooshahay ugaadha dabataagta la yiraahdo 10,000 oo kiiloomitir oo keliya intay ku sii hadhay maanta ay joogtaa. sanadkii 2006 tirada dabataagta ee ku dhaqan hawdka waxaa lagu qiyaasay 1,500 oo dabataag ah inay nool yihiin. haddaba muuqaalka guud ee siyaasadeed ee dhulka Soomaaliyeed aad buu cakiran yahay, waa mid adag oo dhibaato badan oo xaaladiisu aanay degganayn, waana deegaankii ay ku noolayd dabataagta waa la ugaarsanayaa. deegaankii ay ku noolaydna wuxuu wajahayaa halaag iyo nabaad guur iyo carro guur. dhuxul ama ha ahaado ama ha noqdo magaalooyinkan la deegaameynayo iyo beeraha sida daaqa xoolaha iyo dadkan maaragtay ku fidaya meelahaas ee ku daaqtigaya. sidoo kale waxaa dabataagta weeqay abaaraha oo aada ugu soo noqnoqday dhulkii biyaha lahaayoo laga qabsaday deegaankeedii ay ku noolaan jirtay. baarsyo kale oo la sameeyey waxay sheegeen 1980yadii ilaa horaantiisii ilaa dabayaaqadiisii sanadkaa in meesha hawdka ay dagaalo aada u badan ka socdeen iyo dagaalo beeladiya wax sidaasa in gebigeedaba la waayo oo ay wadankaba ka dabargodo iyo inay meel kale u guurtay oo deegaanka ka bedelatay. laakiin sida ilaha qaarkood sheegeen isla xogtaa lagu xusay berigaa la diiwaangeliyey in ay xeebta u guurtay oo xaggan maaragtay waqooyiga imika cawsha iyo wax hadhaageedii kusii hadhadheen cidlada ah inay u yara qaxday. intaa kadib bay adugu markii ay xaalad yara degtay ay soo noqotay sida la filayo oo imika intan yarina ku soo noqotay. dabataagta lagu haysto guryaha iyo hodheelada lama yaqaano tiradooda, xilli kasta waa la dhoofiyaa oo caalamka loo iibgeeyaa oo beeraha xawayaanka iyo dunida kale ayaa lagu haystaa oo loo dhoofiyaa lagu xanaaneeyaa si lagu dalxiiso. xogtan iyo cilmi baaristan aan idinla wadaagayo ku saabsan dabataagta waxaa sameeyey gumaystayaashii gaalada ee dhulkeena kusoo duulay qarnigii 19aad. kadib anna waxaan door biday inaan afkeena hooyo inoogu soo turjumo si ay ummadda Soomaaliyeed khayraadkooda iyo dhaxalkooda Ilaahay ku galladay keligood ee uu ku gaar yeelay siday wax uga bartaan, si ay u ilaashadaan una fahmaan qiimaha uu leeyahay oo ay u dhowrtaan. guntii iyo gunaanadkii waxaan kusoo gabagabeynayaa aan kusoo afmeerayaa Soomaaliya deegaankeena iyo duurjoogteena iyo khayraadkeena iyo xawayaankeena iyo quruxdeena iyo dhulkeena ma dhowrana. oo haddaynan dhowranayn ooynaan u daryeelayn sida caalamka kale u xanaaneeyo duurjoogtiisa ugana faa'iidaystaan khayraadkooda una daryeelaan dhulkooda una ilaashadaan deegaankooda, waa inaynaan iska dabargoynin oo laga wacyigeliyaa bulshada reer miyiga gabraarsiga ugaadha ay ku hayaan iyadoo aan baahi iyo gaajo u geynaynin oo xoolahooda ay dhaqadaan ay u wanaagsan yihiin oo aanay caydhoobin ama aanay abaari kaga dhicin oo aanay ka xumaanin iyagoo barwaaqo ku jiro cad iyo caano haysta oo ama xoolo badan leh ay haddana ugaarsanayaan ugaadha yar ee sii dabargo-aysa masaakiinta. sidoo kale waxaan u baaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee si tuuganimo ugu dhoofisa duurjoogta iyo khayraadka dhulkeena hooyo ee Ilaahay ku gaar yeelay ajaanibta ama dibadaha u iibgeeya inay ka xishoodaan ama ka waantoobaan waxyaabaha ay ku kacayaan iyo khiyaamada ay dhulkooda u geysanayaan aanay dhinac kasta ka dhiigmiiranin ummadii oo ay u turaan wadanka iyo khayraadkooda iyo dhaxalkooda ay ilaashadaan iyo sharaftooda. sidoo kale waa inaynu qorshe la nimaadnaa deegaankeenii iyo dhulteenii oo naxaalufinay oo aynu dabargoynay dhuxushii aynu ku dabargoynay dhuxush aynu ka shidaynay dhulkeena wixii lagu bedeli lahaa waa inaynu keennaa si maaragtay ay u noolaadaan xawayaankii dhirtan iyo waxaan ku noolaa oo deegaanka aan si deegaan ay hoy iyo cunto ay uga helaan daaq uu u noqdo deegaankii oo ugaadhay intan yar si hadhayna aanay dabar goyn.
inkastoo beri dhow siday ku socoto aynu iska dhex wareegi doono ama deegaankiinu isku saxaro u bedeli doono dhulka Soomaaliyeed oo dhan maadaama uu dhulkeena dagaal badan oo dahsoon oo biological warfare environment ah laynagu soo qaaday sida dowladnimada Soomaalida loogala dagaalamay midnimadeedii ee 5 meelood intuu loo qaybiyay haddana imika loo sii kala qaybinayo intii iskala soo hadhay oo dhowr iyo 20 ay madaxa la sii geliyaan inta maamulood ee Soomaalida loo sameeyay sidaas la mid ah siyaasadda laynooga dagaalamay laynooga burburiyay deegaankeennina dagaal dahsoon oo hoos lagu soo weeraray kaasoo soo bilaabmay 1990kii meelahaas dagaalkaas oo ah geedka keligii noolaha la yiraahdo ee dhulkeena ay ku beereen nimankan gaalada hay'adahan soo duulay geedkaas oo dhul xeer la yiraahdo ama weed waxaan u jeedaa weed farming la yiraahdo farming weed geedka macmuusha oo adigu dhulka aanu ogolayn inay geedo kale ka soo ag baxaan oo dhul xiira oo disaster dabiici ah xawayaanka dilaya sidoo kale dadka dilaya oo xanuuno energy-ga laga qaadayo sanbabada iyo meelaha caabuq geliya energy-ga xawayaankii kale dhulka ku jirayna chemical ku sii deynayo oo dhimanayaan ciidda kii kale ku dul noolaa xasharaadkii kale dhulka ku noolaa ee kalena ay dhimanayaan kuwaas haday dhintaanna shimbirihii iyo wixii cunayay baa dhimanaya kuwa shimbirahaas haday dhintaanna dee xawayaan kale ku sii xidhan oo iyagana dee meeshii ka baxaya oo wax anigu isku wada xiran yihiin marka dee xawayaankii ilaa shimbir ilaa xasharaadkii geedaha ku noolaa meeshii markay ka baxaan dee geedii kalena way ka baxayaan oo geedka bannabaad guurinaya dee keligii noolaha la yiraahdo waxaan noloshan ilaahay bay isku wada xiray isku wada silsiladeeyay marka ilaahay khayr ha inooga dhigo ilaahayna inoo bareeyna insha Allah inuu khayrka iyo inagana garansiiyo in aakhiriya dunbana khayrka inoo waafajiyo insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.